kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada gabagabada tartanka koobka qaramada Afrika oo muddo 3 toddobaad ka socday dalka Equatorial Guinea. waxaan barnaamijkan ku eegaynaa guud ahaan guulaha laga gaaray qabashada tartanka iyo haddii ay jireen cillado yaryar oo ka hor yimid. waxaa hadda ugu soo biiray Maxamed Axmed Deysane oo kubadda cagta ka faalooda iyo Sakariye Maxamed Balile oo u ciyaari jiray naadigii kubadda cagta ee Muqdisho. waa hagaag haddaba aan ku bilaabo muxuu yahay Deysane guulaha la dhihi karo tartankan waa laga gaaray. sida muuqata guul waaweyn ayaa laga gaaray sababtoo kooxihii la filayay inay soo baxaan oo aan filaynay inay finalka yimaadeen ayaa isku yimid sidii Ghana kale Ivory Coast oo muddo badan isku dayday inay koobka qaado isla markiina finalka timid inkastoo sidii la rabay aysan u qaadin oo ciyaartoy waaweyn oo Premier League ka dheela sidii Yahya Toure Wilbury Bony ay joogaan iyo Javinho haddana meeshii la rabay oo aan filaynay way yimideen. Ghana lafsaanteeda koox dhalinyaro oo la filayay inay meeshan soo gaarta ay ahayd inkastoo macallin fiican oo Chelsea wada jiray iyo kooxdii West Ham oo tababaro u ahay oo la filanay sanadkan Afran Gram oo keenay finalka. marka laba koox aad iyo aad u fiican oo Afrikana magac ku leh ayaan saas ayaan filaynay waa yimideen inkastoo kooxa aan la filaynin oo waaweyn ay ka hareen. Balile maxay kula tahay Sakariye guulaha tartankan laga sheegi karo? runtii Axmed intii badneed waxa sheegay saaxiibka Deysane laakiin waxa overall oo ahaa ciyaarihii ugu fiicnaa dhaca tartamada Afrika marka loo fiirsho sababtoo ah players badan oo professional ah ayaa sanadkan tagay ciyaartoy waaweyn oo la wada yaqaano maanta waxay sumcad u tahay marka Afrika oo maanta la wada daawanayo adduunka oo dhan ciyaaraheed maadaama ay ka wada tageen kooxihii weyn ee dalka Yurub ka wada ciyaaro marka ciyaar guud ahaan aad iyo aad ay u fiicnaayeen oo waxay ahaayeen ciyaar la fiirsan karo sidii professionalkii hore aan arki jirnay laakiin maanta tartanka Afrika wuxuu noqday mid la tartama qaaradaha Latin America iyo Yurub. Deysane goolashii la dhaliyo kale maxaa ugu fiicnaa gool isleedahay cajiib oo ahaa ma jira? runtii sida aan arkayna goolal waaweyn oo cajiiba kama dhalan laakiin isla markaana goolal kalena oo fiicanna way ka dhashteen laakiin isku soo duub sanadkan Afrika waxaan u malaysaaba in aysan ahayn waxaan arki jirnay waayidii hore koox badan in lagu tunto goolal badan laga dhali laakiin sanadkan saas mayna dhicin ciyaaraha waxaa u malaysaa inay aad iyo aad u adkaayeen ay isku dhawaayeen haddii aan fiirino Ivory Coast oo kale ciyaarihii ugu horreeyay dhanbarbar dhacayay gashay ciyaartii ugu dambeysay waxaa u malaysaa inay si tartiiba ay u soo kacayeen. Ghana ciyaartii ugu horreysay waa laga badiyay kadib ayay soo kacay sababta ugu weynna waxaan qabaa waa ciyaartoy badan oo dibadaha ka dheelo markay isku yimideen waxaa u malaysaa isqabsashadii ay isqabsa lahaayeen inay xoogay dhib ahayd taasna keentay in si tartiib ay u soo kacaan ilaa finalka aan arkaynay ciyaarooda inay soo xoogaysanayeen marba mar ka dambaysa. waa yahay goolasha la badbaadiyey oo kale maxaa idin la qiimo badnaa Sakariye? runtii goolal badan aad iyo aad oo la badbaadiyaa jiray Axmed Nuur markaan ka soo qaadano ciyaartii hadda ugu dambeysay finalka ahayd labada goalkeeper aad iyo aad goalkeeper professional oo aad u fiican ay ahaayeen qaasatan goalkeeperka ma u qabtay Ivory Coast penalty shootka markii la gaaray waato penalty asaga shakhsi ahaantiisa koobka lagu qaaday oo dheeliyay midna uu save gareeyay marka overall markii la isku daro kooxihii dhan waxay ahaayeen boortiyaalka Afrika suntii markii la fiirsho waa boortiyaalka soo maray dhan waa boortiyaal ugu fiican adduunka haddii 90 ka soo bilaawno ninkii u qaban jiray Cameroon aad iyo aad u fiicnaa oo ka professional oo ahaaba oo ka ciyaaray Europe inta Afrika runtii markii la yiraahdo best keeperka ayay haystaan. marka hadda goolhayahan Ivory Coast oo kale waxa la yiraahdaa Abubakar Bari intuu gool badbaadiyay ayuu goolkii koobka lagu qaadana dhaliyay marka waa waxyaabaha cajiibka oo tartanka ka dhacay kamid tahay Soomaaliya. waxay ahayd Ghana laba gool ay dhashatay Ivory Coastna laba gool ayaa laga qabtay oo Ghana waxay niyadda gashatay inay koobka qaadayso marka goolhayaha ayaa culays ka saaray oo tii saddexaad oo ka qabtay tii afraadna banaanka iska marsiyeen taasna waxaa soo noolaatay rajadii oo waxaa soo noolaatay Ivory Coast ayaa soo noolaatay waxaana qabaa Ivory Coast iyo Ghana goolhaya ahaan inuu fiicnaay Ivory Coast sababtoo Ivory Coast
goolhayooda laba rigoora ayuu qabtay midna banaanka ayay ka martay 3 laakiin kan Ghana waxba ma qaban oo Ivory Coast kubadaha banaanka ayay iska marsiiyeen oo wax asiga celiyay mal wax ay ayaga banaanka marsay midna birtay ku dhifteen Wilfred Bony oo aan ogeyn 30 milyan lagu soo gatay birta ayuu ku dhiftay ciyaartooy kalena banaanka ayuu marsiyay laakiin ciyaartooyga Ivory Coast u qabanay laba kamid gacantiisa ayuu ku badbaadiyay marka goolahay aad iyo aad u fiican ayuu runaantii مثلا تببرها او كله كوحدان ايفوري كوست افقا ريناردو sanadkii 2012 Zambia markii koobkan qaadisay isaga waday haddana isaga macallin u ah kooxdan Ivory Coast marka soo uma kooxdii rabta in wadankii raba inuu koobka qaado inuu macallinkaas soo kiraysto runtii waa nin ciyaaraha Afrika aad iyo aad ula socdo waxaan u maleysaan inuu Ivory Coast ka bedelay nidaamka ay ku ciyaari jirtay marka hore waxaan u maleysaan inay weerar xoog leh wada qaadi jirtay aysan soo naqan jirin laakiin hadda waxaan u maleysaan inuu difaac ku hayo ciyaartii ayaga iyo Ghana dhex xogaa waxaan u maleysaan Ivory Coast in laga awood badnaay laga fiicnaay laba marna biraha lagu dhifto Atsu iyo Ayu laba mar ayay birta uga dhacday kubada uga dhacday oo waxaan u maleysaan Ghana inay firfircooneed laakiin waa la difaacay oo heerkaas wuxuu ku soo gaaray difaac fiican oo uu dhisay Ivory Coast aan la socono weerarkooda ayaa aad iyo aad u fiicnaa laakiin waxaan u maleysaan difaacoodana inuu fiicnaa laakiin xogaa waxaan u maleysaan Ivory Coast ciyaartii Ghana ay la dheeshay wixii aan ka sugaynay Wilfred Bony iyo Javini iyo Yahya Toure inaysan gool dhalintii meesha aan ka arkin laakiin waxaan u maleysaan inay isku daaleen waaya Zakaria kooxaha sanadkan meeshii la filayay meel ka fiican gaaray iyo kooxaha meeshii laga filayay hoos uga dhacay yaa kamid ah Axmed waxa kamid ah Cameroon oo la yaqaano inay tahay Lion Africa oo sanadkan ay stage-kood ka soo bixi weysay South Africa sidoo kale Mali oo kale waxa horumar sameeyay labada Congo iyo Equatorial Guinea oo lagu qabanaya dalkeeda ee timid semi final waligood ma imaan jirin laakiin waxa dareemi kartaa maanta in Africa la kala liidanin haday noqoto 2012 waxa qaaday Central Africa oo Zambia ka socoto waagi hore waxa qaadi jiray West iyo galbeedka Africa maanta laakiin waxay noqotay kubaddi inay maanta lagu xisaabtamo waqooyiga Afrikana waa qaadi jiray waqooyiga oo Masar kooxda ugu haysato waa 7 jeer ee qaaday 9 jeer 8 final timid mara laga badiyay 7 way qaaday Ghana ka timid 9 final ay timid 5 waa laga qaaday 4 way qaaday oo aniga Ghana la jiray oo Ivory Coast ka soo horjeeday macallinka tababara ay haya Ghana aha tababarna soo bar kubad cagna soo bar marka munashibi ahaydeen munashibi marka dalkeen wax u qabtay anaga kaliya ma dalka wax u qabtay xataa inkastoo aan la jiray Ghana kubadda ee fiicnaa Ahmed xarayto laga fiicnaa Ivory Coast ani fikrad ahaantayda sababtoo markaad fiirsid kubadda isku dhiibkeedii waa laga fiicnaa Ivory Coast Algeria oo koobka adduunka wacdara ka dhigaysay sidii aan arkayna Brazil markii la tagay sanadkii hore way hareen marka maxay kula tahay ka fiicnaa Cameroon iyo Senegal iyo way ka fiicnaan oo stage-ka quarter finalka ay ku hareen ay soo baxeen Tunis way fiicneed Equatorial Guinea oo qabshadii ka dhacday goolka aan jirin laga dhigay garsoori xataa lagu ganaaxay Axmed in overall marka isku dartid kooxii waaweyn waa Cameroon South Africa iyo Mali iyo Senegal oo aan soo bixin labada Congo iyo Equatorial Guinea ay soo baxeen waayahay marka tartankan marka la fiiriyo maxaa dhibaatooyin oo ka muuqday xagga nabadgelyada xagga maxaan ku yiraahdaa cudurkii Ebola Morocco oo tartanka marti gelin lahayd ay diiday Equatorial Guinea ay sidaas ku qaadatay tartanka runtii dhibaatada dhacday waxay ahayd Equatorial Guinea iyo Ghana ayaa dheelay Equatorial Guinea wadankeeda ayaa lagu qabanay oo ciyaartaas waxay rabtay inay badisay ay soo baxdo wixii ay filanayeen maahane waxa soo baxay wax ka duwan sababtoo markay weerar soo qaadeen sida aad ogeedba aad tiri goolkii labaad oo Ghana ayaa u fiicnay weerar celin ayaa lagu qaaday oo 3 gool oo weerar celin ayaa lagu qaaday taageerayaashina markii wixii ay rabeen meeshii way ka soo bixi weysay oo 3 gool ayaa laga dhaliyay taas ayaa keentay inay taageerayaashii ay xanaaqaan ay garoonka soo galaan marka Equatorial Guinea meesha ay soo gaareen meel fiican ay soo gaareen laakiin ma ahayn inay garoonka soo galaan inay ogolaadaan in laga raay karo ayna raay karaan marka Ghana
ayay waxay filayeen inay ka adkaa doonaan maadaama gurigeeda ahayd lagana waxay la timid shax ayay la timid oo difaac ayay u gashay markay dhalinyar yarna way haysteen markay soo weeraraanna weer celin ay ku qaad isla markiina 3 gool ayay ku buubsiyeen taasay taageerayaasha qaada waayeen oo garoonka ayay soo galeen taasna waxay u ahayd sumcad xumo ay Afrika ahaan ay u ahayd inay saas sameeyaan meel Zakaria kooxdan Equatorial Guinea marti gelinaysay ma waxay meesha ku timid ciyaar wanaag mise inay iyadu marti gelinaysay ay ku socotay saas ku soo gaartay أحمد سنفيلا مركز إيمانيس كم إيمانيس إنها مرتجلسيد أتيجني عاد بيوفعن عيارتو يدو وذا عياري قارقود بريفيشنالي وذا هايين سوحين كتمت عيار وناك أي ما جيسي ميدا كلام عن وقاد وفرح سنة أنتو جني إني لاست مينت كي أقولت إني قبضته مراكن أي ديتي مراكن اللي جو جناحي لبترتن أو أفريقيا صوص عددا هي ملايين العقة ما دام آخر ساعة يشكتي أتيجني كم إيمانين martigelin ahaan Axmed kaliya waxa ay ku timid inay ciyaar wanaag ay muujisay runtii ciyaarta semifinalkii wixii dhacayna aad iyo aad ayay uga taxadireen marka runtii la yasukurid ahaanka aad u fiicnaa waxa ay qabteen ciidamada dalka dadkiisa u galay isla markii habkay u sameeyeen martigelinta garoomada aad iyo aad ula dhacay runtii waana ugu hambalyeynaa dawladda inta Guinea tartankaas intii uu socday dabcan waxa nooga soo waramayay wariyahayaga Cabdifataax Ibraahim Cagayare isaga ayaa dabcan inoo soo koobaya guulihii tartankaasi laga gaaray muddadii uu socday 3 toddobaad ahayd dalka Equatorial Guinea uu martigeliyay tababaraha xulka Ivory Coast Hervé Renard oo u dhashay wadanka Faransiiska ayaa waxa uu noqday tababarihii ugu horeeyay oo 2 qaran u qaada koobkan qaramada Afrika 2 ciyaaryahan oo Ghana ka tirsanna waxay ku guuleysteen biladihii ugu wanaagsanaa oo ciyaaryahan Christian Atsu ayaa waxa uu ku guuleystay ciyaaryahanka ugu wanaagsan tartanka qaramada Afrika ee lagu qabtay wadankan Equatorial Guinea sidoo kale Atsu waxa uu ku guuleystay bilada goolka ugu wanaagsan tartanka goolkaasi oo uu ka dhaliyay kooxdii Guinea oo ay 3-0 uga adkaadeen rubac dhamaadka koobka qaramada Afrika Andre Ayew ayaa waxa uu ku guuleystay bilada ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badnaa tartanka kadib markii uu dhaliyay 3 gool dhanka kalena waxa la soo ran karaa tartankan qaramada Afrika ee 2015 lagu qabtay wadankan Equatorial Guinea waxa uu ahaa mid guul ku soo dhamaaday midowga Afrika ayaa waxa uu ammaan u soo jeediyay xiriirka kubadda cagta ee Afrika Equatorial Guinea iyo madaxweynahooda kadib markii ay si habsami leh tartankan u martigeliyeen tartanka ayaa si wanaagsan ku socday bilow ilaa dhamaad inkastoo ay mararka qaar dhacayeen cabasho ay muujinayeen kooxaha qaar waxa uu ahaa Cabdifataax Ibraahim Cagayare oo tartankaasi intii uu socday nooga soo waramayay haatanna waxaan u gudbaynaa qaybta ku saabsan tartankan markuu bilaabanayay saadaal ayaan ka bixinay 3 qof annagoo kaga qayb galnay aniga iyo Deysane iyo Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad nin walba sida ay la tahay in tartankaas uu ku dhamaan karo iyo kooxda ku guuleysan karta marka hadda waxaan furaynaa waraaqihii tartankaas loogu talagalay cidda bal hadde saadaasheedii ay sax noqotay dabcan Cabdirasaaq sidaas aad arkaysaan uu naga maqan yahay saaxiibkay laakiin aniga ayaa furaya warqadiisii marka Cabdirasaaq waxa uu yiri Ivory Coast ayaa qaadaysa Deysane adigu waa joogtaa saadaashaadii aan aragno inoo fur adiguna saadaasheeda waxay u badan tahay inay tahay Ivory Coast oo Cabdirasaaq aniga waxa u maleysaa inaa isku mid tihiin isku midna waayahay anigu idinla mid ma noqon doono marka saadaashayda ayaan idin tusayaa Algeria waa la gafay anigu marka intaas ayaan barnaamijka maanta ku soo gabagabaynaynaa aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa Zakaria Maxamed Balile ciyaartoy hore naadiga Muqdisho iyo Maxamed Axmed Deysane oo kubadda cagta ka faalooda oo aad wada garanaysaan dhammaantiina waa mahadsantihiin nabadgelyo